ergeyga gaarka ah ee wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo la hadashay warbaahinta dawladda ayaa waxay ka warantay muhiimadda ay doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka ay u leeyihiin dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo si qoto dheer oo aqoon ku dheehan tahay u sharaxday muhiimadda iyo waxtarka doorashooyinkaasi ay u yeelanayaan Jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale geedi socodka dimuqraadiyadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland. halka aynu maanta joogno meynaan soo gaadhneen cadow weyn oo xoog weyn iska meynaan celin karneen haddaynan meel uga soo wada jeedin. maanta waxay nagu soo foodlay doorashooyin waxay ilaahay ka baryayaa inaynu ficilkii aynu weligeeba muujin jiray inaynu muujino. ficilkaas muxuu inoo taraya? horta tiradeenu muujinaya dad baa yiraahdo waa dawlad yar waa dal yar. tiradeena horta in halkaa lagu ogaado baan doonaya inaan yarayn. waxaan doonayaa in adduunka ogaado inaynu nahay dad meel isku duuban oo danaheena meel uga soo wada jeeda. waxaan doonayaa in adduunka ogaado inaynu mustaqbalkeenu yahay mustaqbal aynu inagu soo dhisanay. 30 sanadood meel wax kale inooga yimi kuma inaan dhisanin. xoogeena iyo itaalkeena iyo tabaruceena ayaan ku dhisanay. ilaahayna inala qabtay. ilaahay aad buu inoo jecel yahay. waxaynu aad ugu faanaynaa maanta in adduunka meel walba laynaga yaqaan. aqoonsigeenina aan leeyahay maalinta ka dambaysa uu inoo soo dhawaanaya. wuxuu inoogu soo dhawaaday wada shaqaynta aynu wada shaqaynay. dhanka kalena Marwo Adna Aadan Ismaaciil waxa ay hambaliye bogaadin u dirtay munaasabadda dhalinyarada adduunka awgeed dhalinyarada ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana ay farriimo xambaarsan waano iyo hoga tusaaleyn ay la wadaagtay dhalinyarada dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo si gaar ah ugu soo jeedisay inay bartaan aqoonta anfacaysa dalkooda iyo dadkoodaba. shalay waxa la xusay munaasabadii maalinta dhalinyarada ee adduunka. waxaan doonayaa inaan hambaliyo duco u diro dhalinyarada Somaliland. waddankeenanu wuxuu ku dhisan yahay shicib maasha Allah qurux badan. wuxuu ku dhisan yahay nidaam nabadgelyo waxaynu horumarka adduunka oo dhan laga majeeranayo aynu ku gaadhnay wada tashi wada shaqayn isku xidhnaansho. taasaa mustaqbalkeenu ku xidhan yahay. taasaana mustaqbalka dhalinyaradeenuna ay ku xidhan tahay. dhalinyaroy mustaqbalkiina idinkuna dhisa inaguna aanu idinla dhisno aynu meel uga soo wada jeedno Somaliland. mustaqbalkiina waa mustaqbalka iyaga. mustaqbalkeena waa mustaqbalka dalkeena. waxaan doonayaa maanta laga bilaabo sanadkaas aynu doorashooyinka ku jirno dhalinyaradu inay maanta ay muujiso taageerada Somaliland iyo dalkeeda ay u hayso kalgacaylka ay u hayso dadaalka ay u hayso. maanta waa maalintiinii inaad xoog saartaan waxbarashada. horumarku wuxuu ku jiraa dantu ku jirtaa aqoonta iyo tayada aqoontaadu ay leedahay. waxbarasho oo kaliya maaha waxbarasho tayo leh inaad barataan baan doonayaa. cilmiyada adduunka ku shaqaystana aynu ku shaqaysano. dawooyinkan maalin walba laynoo keenayo ee aan tayada lahayn ee bugta ah ee lacagtuna inaga furanayo cilmigeeda inaynu baranayno doonaynaa. inaynu baadhnayno doonaynaa dawooyinka laynaga iibiyo inaynu baadhno oo ogaano waxaan ku jiray laga sameeyey. waxaan doonayaa inaynu baranno cilmiyada caafimaadka. dhakhaatiir wanaagsan soo saaro. dhakhaatiirtii hilkeena ka shaqeynaysa soo saarno kalkaaliyaal wanaagsan. wixii aynu baranaynaa ay noqdaan wax tayo leh oo sida ugu wanaagsan ee ugu sarreysa aynu u barano oo aan adduunka kula tartanno. wanaaga ha laydinka arko. saasaynu isku ognahay. saasaynu idinku ducaynayaa.